qaybtan waxaan ku arki doonaa insha allahu tacaala hordhac yar oo kooban oo ku saabsan faa'iidooyinka cilmi baarista. Qaybtan waxaan aad uga hadli doonaa waxyaalaha la xiriira cilmi baarista, statistikada iyo dhammaan teknolojiyadda qaybaheeda kala duwan. Cilmi baarista sida caadiga waa hab nidaamsan oo aqoon lagu raadiyo laguna ogaado xaqiiqooyinka cusub ama lagu xalliyo dhibaatooyin jira iyadoo la adeegsanayo xog, falanqayn iyo caddayn cilmiyeed. Cilmi baarista ayay leedahay qaabab kala duwan ayay leedahay, sida cilmi baaris mid tayo leh oo qualitative la yiraahdo, iyo mid la yiraahdo quantitative oo iyadana ku saabsan tiro ku saabsan, iyo mid isku dhaf ah oo mixed method ayaa la yiraahdaa. Macnaha labadiiba isku jira, tiro iyo tayo way leedahay. Mid walba waxa uu ku habboon yahay noocyo ama su'aalo qofkaas uu rabo inuu ka jawaabo bay ku habboon tahay. Faa'iidooyinka cilmi baarista ay leedahay way ballaaran yihiin, balse waxaa ka mid ah kordhinta aqoonta, sidoo kale waxay xigtaa qaadashada go'aan qaadashada, horumarista sidoo kale waxay horumarisaa adeegyada, waxayna ka caawisaa bulshada in loo helo dhibaatooyin dhabta ah in maaragta xal loo helo. Qofka cilmibaaraha sidoo kale waxyaabo badan baa looga baahan yahay aad u saaj karaya ama u goobo shayga wax sababay iyo waxa marka hore inuu fahmo kabacdina uu ka keeno xal iyo wixii maaragta loo baahan yahay. Sidoo kale cilmi baarista waxaa looga faa'iideyn karaa horumarinta waxbarashada, caafimaadka, dhaqaalaha iyo si guud nolosha bulshada. Waxaas dhan cilmi baarista u baahan tahay annagoo ka dhigayna marka go'aanadeena kuwo ku salaysan caddayn iyo aqoon sugan. Marka qaybtan si guud waxaan arki doonaa wax kastoo la xiriira cilmi baarista ayaan kusoo bandhigi doonaa, waana muhiim in qof walba inuu fahmo qaybtan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.